diyaaradan oo waday gargaar caafimaad oo intiisa badan ka yimid bulshada ka soo jeeda magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ee ku sugan Muqdisho ayaa galinkii dambe ee maanta soo gaartay Cadaado waxaana lagu wareejiyay maamulka degmada Cadaado. maamulka Galmudug iyo dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaatay imaanshaha gurmadkan caafimaad si loo dabiibo loona badbaadiyo dadka u dhimanaya caabuqa corona oo 24 saac u dambeysay ay sii korotay dadka gudaha magaalada Cadaado ugu dhimanaya. dhaqaatiir caafimaad oo Muqdisho laga soo diray si bilaash ahna uga qayb qaadan doona badbaadada dadka u dhimanaya caabuqa corona gudaha magaalada Cadaado ayaa qayb ka ahaa waxa ayna durba bilaabeen baarista cudurka. maayarka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole ayaa la wareegay qalabkii caafimaad ee galabta Cadaado soo gaaray kaas oo lagu qalabayn doona xarun u gaar ah dadka qaba cudurka corona. halkaan hadda aan taaganahay airportka magaalada Cadaado dhabarkayga waxaa yaala agab caafimaad ka yimid magaalada Muqdisho. diyaaradda waxay siday agabkan caafimaad oo dhabarkeena yaala iyo dhaqaatiir fara badan ayay siday arintaas oo looga jawaabayay dhibaatadii coronavirus COVID-19 Cadaado ee dadka badan ku dhintay hadeerna dad badan u daadsan yihiin. waxaan rabaa markaa inaan mahad celiyo Ilaahay waxdahu kaligiisana ugu mahad celiyo. waxaan rabaa marka kale inaan mahad celiyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudug inaan labadaba u mahad celiyo. waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad celiyo community-ga reer Cadaado oo ayaguna qayb ka qaatay arintan. dawladda halkan taala iyo qalabka halkan yaala oo ay ku jiraan qalab aad ugu muhiim ah dadka oo soo rito COVID-19 oo sida oxygen-kii iyo qalabkii gargaarka degdega ah oo halkan ku jira. qaybna waxa keenay community-ga reer Cadaado ee Muqdisho. qaybna waxa keenay dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug iska kaashaday. dhaqaatiirtana dawladda soo dirtay Soomaaliya. sidoo kale waxaa loo sheegay in bari sidoo kale diyaarad kale imaanaysa oo iyadana qalab kale iyo dhaqaatiir kale wada. waxaan leenahay dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijkan aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhammaantiin. annaguna insha Allah hadeer ayaan xarumihii caafimaadka istaalka iyo karantiilka aan ku wareejin doonaa. waana mahadsantihiin aad iyo aad aan ka mahad celinaa insha Allah. muddo isbuuc gudihiisa ilaa 10 ruux ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen cudur la aaminsan yahay inuu yahay caabuqa corona kadib markii uu ku dhagay naqaska taas oo muujisay shakiga ah in magaalada Cadaado uu si weyn uga jiro caabuqa corona. Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta Goobjoog magaalada